الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. إخواني في الله، كسر دوادة برنامج كأني يحسوسي آيات إنه قبل حيي مساجد كمروكو بيج كان مساجد كمروكو مقارنة بريسبن. حلقة أنا وحلقة دي لبي الطبنات إن شاء الله تعالى. وحينو ما أنت كسر قادي دونا قصة كسر سورة العصر. إلهي سبحانه وتعالى حليه هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. سورة إن شاء الله تعالى ونشرح دونا فوائد إنه كهلينه. لكن ما أنت وحي لجوجه لبو أخيار ولا لا عثمان يو عبد القادر يا عثمان أور ملبن نجا soo booqday magaalada Melbourne. Labadan walaalaha waxay maanta noo wadaan khaasatan Usmaan qiso cajiib oo wiigi dhaweyd dhacday oo aynu kaga faa'iidi karno suuratul Asr. Insha Allah ta'ala waxaan ku wareejinayaa walaal Usmaan in uu bal inoo sharaxo qisadaasi qaabkay u dhacday sida ahayd. Usmaan إن شاء الله تعالى كسر دو قصة أسوي جدا ويد عادي يقابك ودعادي. جزاك الله خير. إن شيخ داود هذا ما حسنت هاي إن وان كاجم هاد علينا فرصة دا نصيصي إن عن أمد الصوماليات إن اللي وداجنه يقف ولي بقى جاري دون تفرين تان رناهانتي آت كقالي وآه إن ولا لي رناهانتي أرين كاني أما قصة داني وقصة أنو أركو إن قف كمسلم كأهي إن وما أركز أو كزيا سندوني إيمان كيسا قف كأن مسلم كأهي إننا waxay ila tahay hadii qisadani si sax ah loo gaarsiiyo inay sabab u noqon karto inuu diinta islaamka u soo galo. Qisadani waa qiso cajiib ah oo run ahaantii qisada igu yaabka badnayd igu xiisaha badnayd igu rajada badnayd inta aan noolaa aan ma arkaysa aan la kulmay. Sheekh Daawud waxa dhacday 25 bisha la soo dhaafay ee February hadaan ka soo baxnay waa isbuucii hore maalinta Monday ahayd oo isla sanadkan 2019 waa muddo hadda dhowr maalin laga joogo ayaa waxa ay soo wacno shaqo ku jira nin saaxiibkaya oo wiil walaal waxa ila soo hadashay gabar oo baadiriyad ah oo ka soo jeeda dalkan South Sudan. South Sudan arin mucjiso ay ii sheegtay markii waxaan rabaa gabadhaas inaad la hadashid kaalay buu igu dhahay masaajidka Amsa ee magaalada Melbourne. ما arkaysa si aad qisada uga dhageysatid gabadha waxay rabtaa talo in laga siiyo arinta ay la kulantay. Sax waan soo baxay Melbourne bay ahayd masaajidkii aan tagay labadii duhurnimo balansanay gabadhii way mashquushay xilliga marka telefoon baan ma arkaysa aan kala hadlay Allahul musta'an gabadhii iyada ahayd Ilaahay khayraasiyo waan wareystay waxaan ku yiri maxaad la kulantay. سبحان الله أرين وحي إيش شيء عجيبة. عجيب. قبدي وحي يقولي مدة شم بلوطة. أيا هبين والبا. إيو مالين والبا. وحد على قف مجلس يقول شيء جابر الأحمد. أيا رياضة يقول ماذا. وإله الله. إن مرنا آيات القرآن أيو يقولوا الأقرياء بيتي. iyadoo jiifta hurdaysa sax ayadii quraanka aan hurday markii lagu bilaabo aan soo kaco oo indhaha aan kala qaado ama intaan indhaha kala qaadin ka hor waan soo kacay waan soo jeedaa laakiin saaranahay still waan maqlayaa ayadii quraanka ninka igu dul aqrinayo gabadha marka waa Christian waa baadiriyad kaniisada ayay ma arkaysaa kutub ka bixisa ay ka wacdisaa Bible ka sharaxda professional weeyaan waliba waa qof soo baratay oo diplom ku soo qaadatay baadirnimada family ka ay ka soo jeedana waa family sidaas oo kale diinta Christian ku adag marka maanta axada program bay lahayd maanta axada oo taariikhdu hadda ay tahay 3 bisha March program bay kaniisada ku lahayd inay ka hadasho oo iyada inay ka hadasho ay rangareysa ay ahayd sax marka waxay dhahday muddo 5 bilood ah quraankii waa la bilaabayaa waan soo kacay waan soo jeedaa indhahayga way xiran yihiin waan maqlayaa ciyaalkayga markay hadal bilaabaan quraankii waa la joojin markaan musqusha aado waa la joojin subhanallah
aayadaha marka ay ii sheegtay lagu aqriyay gabadha ay waliba ay xifdisan tahay waan idin la wadaagayaa walaalahaygan waan la wadaagayaa haduu ilaahay idmo marka mar waliba waxay moodaa ama qof guriga ku jira inuu cajalad quraan daaray maha waxay riya ay ku aragtay kaliya quraankii bay maqlaysaa say gabadha ii sheegtay iyadoo soo jeeda way waxaad ka dareemaysaa aayadaha ay sheegtay in lagu dul aqriyaa cajiib ah صح marka way baxdaa dariskay u tagtaa waxay dhahdaa qof muslima miyaa jira oo eeriyadan degan oo ma arkaysa quraan ka shiday guriyaha dariska ah gaaladii waxay dhahaan may meeshan qof muslim lama degna marka gabadhii waxay ma arka arinta sababtay guriga degnaa jirtay inay ka guurto because yes waxay u aragtaa iyada say ii sheegtay masiibo iyada ku soo wajahan inay tahay صح waxay tiri waxa laga yaabaa inaan soo waalan rabo arina igu soo wajahan guriga waxay ugu jira marka gurigii way ka qaxday because qof u sharxana wixii may arag xaafad kale degtay صح marka arintaas ay haysatay igu tiri gabadhii suuradaha lagu aqriyo marka ay ii sheegtay waxa kamid ah suurada lagu aqriyay oo wadaadka uu ku aqriyay aayada ugu horeysay suurada ugu horeysay waxay suuratul casr waxay ahayd wal casri innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mar waliba uu yimaado suuratul casr buu igu dul aqrin baytir waan garan waayay anigii marka haddana maalin kale oo ii soo laabtaa habeen kale oo ii soo laabtaa suuratu yaasiin buu igu dul aqrin subhanallah yaasiin suuratu yaasiin buu igu dul aqriyaa ha waa isla ninkii magaciisa ay ku sheegtay Jaabir al-Ahmed suuratu yaasiin wal quraan al-hakiim aayadii buu sii wadayaa waan garan waayay markii quraanku igu bilaabto waan gariirayaa bay dhahday waan soo kaca haddaan soo kaca xitaa wali quraankii waa shiday guriga ka daaraya ciyaalku markay hadal bilaabaan waa la joojinaya haddaan musqusha aad waa la joojinaya haddaan soo laabtana quraankii waa daaran yahay inta waxa si dheer bay ugu dhahday shanta salaadood adinka markii la gaaro waa la adima adin bay maqlaysaa waxay dhahay haddaan guriga joogo haddaan kaniisada aan joogo 10 aan bixinayo haddaan suuqa joogo adinka salaada xilligeeda markii la gaaro waa la adima adin caadi ah oo min bidaaya ilaa nihaaya la dhameystirayo waxa igu darneed bay tir maalmaha kamid ah anoo kaniisada ku jira 10 bixinaya kaniisadii baa subhanallah ayaa adinki ka dhawaaqay waan gariiray hadalkii waa sii wadan waayay dadkii kaniisada ku jiray wada maad hadashid maxaa la aamusan tahay markaas ay culeys ay haystay suga waan la yaabay bitir marka ana waxa Allahu akbar mar walba waa google gareeyaa muslim prayer times ban fiiriyaa bay dhahday waxa ii soo baxda adinka xilliga maqlay inay aad xilli salaada oo adinka muslimiinta ay adimaan waxyaaba cajiibka carabiga marka ayada markii aadaanka iyo suuradaha iyo luqada carabiga taqaana ma sha Allah jazakallahu khayr su'aal fiican gabadha waa gabar Suudaaniyada luqada carabiga way taqaanaa South Sudan weeyaan Khartoum ay waliba ku soo dhigatay high schoolka marka luqada carabiga si fiican bay u taqaanaa bible-ka isagoo carabi haysataa way dhigtaa marka aadinkii way garanaysaa subhanallah marka waxay dhahday anoo kaniisada ku jira ayuu aadinkiisa ay ugu dhawaaqayaan mar waliba meel waliba aan joogo waxyaaba cajiibka marka ii sheegto waxa kamid ah salaada macnaha xilliga waa bariga markii la gaaro laba jeer la adimaa bitir wala fiirso subaxii waa subaxii oo kala duwan cajiib waa labada adin oo fajrka subhanallah adin waa adinka dambe salaadaha kale afar adin kaliyaan maqlaay tiri marka inta waxa sii dheer oo aad iga yaabisay gabadha ay ii sheegtay waxa dhacda bay dhahday wadaadkii inuu ii imaado oo igu dhaho af carabi uu sheegayaa wuxuu leeyahay shahaadateynka ku dhabaaq ha ka xarimin dadka muslimiinta ah in ay kula dabaaldegaan ay kula farxaan ee kaalay oo nagu soo biir waqra al-fatiha macana اقرأ الفاتحة معنا صح gabadhii waxay may garanaynin marka shahaadateynka iyo wadaninka oo ka hadlayo iyo wixii ma fahmayso oo shahaadateynka la rabo in lagu dhawaaqo iyo maarka nagu soo biirtaan iyo way fahmi laadahay wixina 5 bilood bay ku socdaan 5 bilood bay ku socdaan
ay guriga kaga soo guurtay guri kale soo degtay wali quraanki waa socdaa adinkiina waa socdaa ninkii wuu soo laabanaya wuxuu leeyahay kaalay oo nagu soo bir ummadda muslimiinta ha kula dabaal degaano markii waxay tiri arintii waxay ugu noqotay arin fajicisa waxaan u tagay bay tiri marka arintii ugu yaab badnay waxaan u tagay bay tiri baadariga aan kaniisada 10 kan ka wada bixino waxaan ku dhahay bay dhahday warniyo arintaas ay haysata oo mar waliba waa la imaada quraan baa lagu aqriyaa suuratul asr wal asr insan la fi khusr yaasin quraan al hakim adin baan maqla nagu soo bir baa la dhahaya marka aniga xaalkayga ma garanayo waxba igu soo wajah inaan waalan doona laga yaaba arintani ii fasir baan ku yiri bay tiri ninkii baadariga ahaa marka wuxuu ku dhahay waxa ku haya waa waswaas fidnaana kugu soo socota buu yiri ma arkaysa intaad ka jeesid waxa is ilaawsiisid maybe waxa laga yaabaa inaad cidla dareemaysid familkaaga aad u xistay aan lacag ku aruurino aan ku dirno Suudaan familkaaga soo booqo holiday soo qaado wuxuu ugu daray marka arinkani ka qari muslimiinta ha u sheegin cid kalena hal wadaagin arkan gaalada xitaa hal wadaagin adiga kugu ekaada lacag baan ku aruurinaynaa holidayda iska aad gabadha waxay ugu tiri ninka baadiriga waxaan ku yiri arinka ay haya ma ahan ma arkaysa wax u baahan safar ma xalin karo there is something going on around me better marka waxba igu soo socday tir aniga waxba igu soo maqan marka waxa jirkeyga ka qaylinaya ama arintani waxaan rabaa in la sharxan u baahnaay better adiga marka telefoon ay marka halkaas kugu weydiinaysaa su'aalahaas aniga telefoon bay igu sharxaysaa markaas waxaan ku yiri war aan ku siiyay hadaba waxaan ku yiri waali iyo junuun kuuma soo socdo waxa aad maqashay waa quraan jin inuu ku imaado ana shaydaan inuu ku imaado quraan kugu aqrin maayo suuradaha lagu aqriyay laftooda macna gaari xambaarsan yihiin baan ku yiri kitaabka Ilaahay haddaan kaaga bilaabo suuratu al-asr إلهي وحول لي والعصر إن الإنسان لفي خسر يا إلهي دهري مع عصر كل نارنا يا ربي عز وجل وحول لي دتك بني آدمك أو إذن خسارة كسجيهين خسارة ده وحكبت بهذه كلية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هو إلهي الرمي نبي محمد النبي النمذي سير الرمي أو عمل ونكسرنا كودري حق يصبر كان ما أركض دتك أقدر دارمين dadka kaliya ayaa ka badbaadaya khasaarada bani'aadamka ay ku sugan yihiin buu Ilaahay leeyahay suuradani Imaam Shaafici oo aimada muslimiinta kamida wuxuu dhahay hadii kaligeed ay soo degileen way ku filnaan lahayd dadka marka suurad muhiimad gaar ah xambaarsan waaye adiga ayaa waxa lagu tilmaamayaa baan ku yiri in aad ka soo baxdo wadada asaaran tahay oo iimaan oo ah Ilaahay Nabi Muhammad rumaysid amal la aad ku dartid ba lagu dardaarmaya si aad u badbaadid waxaan ku badbaadinimada maxaad sameyn jirtay waxay ugu tiri waliga khamra ma cabin ma zinaysan dad ma dhicin dad ma caayin Ilaahay mar waliba janno iyo wadada saxana weydiin jiray ugu tiri hadaba waxaan ku Ilaahay qalbigaaga u akhristay wadadii saxnayd ayaa ma arkaysa Ilaahay uu ninka kugu soo dhiibay baan ku yiri marka gabadhii warkii waa degay way qaadatay waxaan ku suuratu yaasiin aayadaha ugu horeysa Ilaahay Azza wa Jalla wuxuu kugu tilmaamayaa Nabi Muhammad walo fiirso ilaa adoo Kristaan baad ahayd Nabi Ciise waad rumaysantaa laakiin Nabi Muhammad ma rumaysneed Ilaahay wuxuu ku tusayaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam inuu rusushii la soo diray inuu kamid yahay sida Ciise aad u rumaysay ina Nabi Muhammad aad rumaysay Ilaahay kugu tilmaamayaa كو قرآن كان إنه سن أهين كتاب نبي محمد جاب كيسة كلا صباحية إن أويهاي إلهي كتابه سود الجيي أيا سورة ياسين أي تلمام يسابان كويرة تنا وحي كبريسا إن النبي محمد رميسيد كتاب كإلهينا إن قالت بكبريسا بان كويرة هذا أنصر دا عمرك شهادتين كل باق شهادتين كل باق شهادتين كهرك ورت ما فهمت بان كويرة ما يقول هذا مركز وحن كل شهادتين ك وإن أتقرتي إله عز وجل إنه كلجي أو يحي إله كلا وسنجرن ولا لا عابده نبي محمد عليه الصلاة والسلام
inuu yahay rasuul ilaahay soo diray shahaadateynka waa labadaas qayb baan ku ilaahay iyo nabi maxamed labada inaad qirtid ayaa shahaadateynka la dhahaa marka message-kaas waa very clear baan ku yiri marka kan wuxuu si toos ku weydiinayaa in aad diinta islaamka aad soo gashid oo aad ku dhaqantid waa risaalo ilaahay adigu kuu soo diray waayaan ku yiri waana raxmad kuu soo socota ee waali ma ahan baan ku yiri adinka marka oo shanta jeer lagu adimayo hadda waa shantii salaad waa ad kulay baan soo ilaahay ii waafajiyay baan ugu sharxay waxaan ku yiri shantii salaadood ayaa xilligooda lagu adimayaa waayo waxa laga rabaa marka ilaahay nabi maxamed aad rumaysid kadib aad muslim noqotid inaad shanta salaadoodna inaad tukatid baa lagu amrayaa baan ku yiri marka waxaan ku yiri kani waa chance ku soo maray oo dadku inta badan aysan helin dadka qaar hidaaya oo dadka xaggooda ka ahaatay ayay helaan laakiin adiga hidaaya min Allah baad heshay qof baa ilaahay ku soo diray waxay ku wareersaneed inay raadiso Jaabir al-Ahmad waxay ugu tiri wadanka uu joogo ee tilmaaninka ii Google garay aan raadiyo ninka waxaan rabaa inaan ninka aan raadiyaan rabaa waxaan ku yiri ha raadin baan ku yiri Jaabir al-Ahmad waxaan ku yiri ilaahay baa qofkan ku soo diray malaa'ikta ilaahay kamid inuu yahay laga yaabaa waa qof kale oo ilaahay ku soo diray laga yaabaa jin muslim ilaahay ku soo diray laga yaabaa aduu waa qof ilaahay ku soo diray ha ku wareerin baan ku yiri muhiimadda waxa weeyaan risaalada islaamka inaad qaadatid oo aad ku dhaqantid ayaa laga rabaa gabadhii run ahaantii waxa igu tiri waa ii duceysay horta saacad iyo 15 daqiiqo telefoonku wada hadlayna markaa waa ii duceysay waxa igu tiri shambil culayskii saarnaa ayaa iga dagay bay tiri markaad ila hadashay alxamdulillah ilaahay baa mahadaas kale ilaahay baa anna i waafajiyay run ahaantii cilmi aqoon aan leeyahay ahayn marka waxay tiri inaan soo waalan rabo ama arin inay igu soo socoto anigu aan ka baqiyay bay tiri laakiin hadda culayskii waa iga dagay waxaana sameeynaya bay tiri sida uu ilaahay rabo inaan sameeynaya bay tiri haddaba waxaan ku yiri ilaahay wuxuu rabaa inaan soo muslimteen niyo waxay tiri waan soo muslimi diinta islaamka waan qaadanayaa bay tiri khalaas waa baadariyad qofta diinta islaamka waan qaadanayaa bay dhahday laakiin reerkii dhan gaalnimada way sii dhaafeen buu dhaw waa rag mitidiina diinta gaalada ku adag way la dagaalayaan waa baadariyin anna waxaan ahay bay tiri baadariyad oo kaniisada intaasoo ummad ay ku xiran yihiin axada soo socota 10 baan ku leeyahay bidar kaniisada waxyaabaha kale aan ilaa waxa kamid ah wadamada Yurub wadamo badan bay martay ay dacwo u martay ilaa ay Qudus bay tagtay gabadhaas iyadoo kristaanka si Qudus meelaha oo wanaagsan loo soo tuso maadaama ay baadada iyadoo kaniista markaysa iyadoo kristaanka dan faafinaysa markaysa marka waxay tiri qof sahlan ma ahi Facebook-iga hadda gishid tiri waligayba waxaan share gareyn jiray tiri ma arkaysa Christianity aan share gareyn jiray hadda anigu muslim aan noqdo dagaal badan baa i qabsan doon dhinac walba niyo maxaan sameeyaa bay tiri sida kaana inay arintaan ay ka walwalsan tahay marka waxaan ku yiri dhageyso ilaahay ninka ku imaaday adiga ayuu ku soo diray baan ku yiri fariintaana special message bay adigayna kugu socotay nin kale qof kaniisad fadhiyay waalid ehelku ma socon baan ku yiri diintan waa taqaan baan ku yiri baadiriyad baa tahay qabriga hadaad gashid kaliga aad gali doontaa xisaabtii cadaabtii wax waliba alla ku kaliga marka waxaan ku yiri marka ugu horeysa naftaada badbaadi baan ku yiri dadka ha ka walwalin isoo xasuus marka aayada ugu dambeysay gabadha lagu soo dajiyay aan ku sheegi doonaa astaghfar lagu soo dajiyay maahane riyada loogu keenay ma arkaysa loogu akhriyay markaan saas dhahay waxay ugu tiri khalaas I don't care others waxay tiri aniga naftayda iyo aakhiradeeda ka fikiraya cismaano waan soo muslimi bay ugu tiri marka maxaa xal ah waxaan ku yiri 3 o'clock ahead ma saan u hadlayna 2 baan shaqada bilaabnay 3 bay gaadhay hadda waa 3 baan ku yiri caruurtaada iskuul ka soo qaado oo cuntada si oo ma arkaysa tartiida ha degdegin 6 o'clock hadaad waqti haysid nagu kaalay baan ku yiri masaajidka North Melbourne amsa okay bay ugu tiri waxaan sii balansaday marka wadaadaan sii balansaday sheekh magan ilaahay khayr siiyo sheekh aadan saalix sheekh yaxya muadinka masaajidka iyo wadaad kale sheekh maxamed la dhahayo iyo aniga shanteeni ayaa marka alxamdulillah ilaahay uu noo calfay gabadha inaan la fariisano marka sigis intaysan noo iman ka hor masaajidkan ka tagi maqaaxidan qadar ka doontay anoo marka qadadii u fadhiya bay waxay soo wacday 3 baan kala tagnay waxay soo wacday 3:38 minutes bay soo wacday meelahaas aduu 4 intaan la gaarin markaas waxay u turay cismaan hadda intaan kala tagnay anoo gaarigaygii wadada saaran
ayaa haddana mar kale qur'aankii ka dhex dhawaaqay bay igu tiri gaarigayga subxaan allah صح waan gariiray markii quraanka ma arkaysa la akhriyo waan gariiray bitiri xabsiya ay gashaa gaarigii waxay tiri wadadan istaajiyay hazard light kan shitay tiri sida qof ma arkaysa gaariga ka brogaroowa oo kale baawurtina way iga leexatay arintaas ay qabsatay bay u dhahday markaas waxaan ku yiri ma xasuusan kartaa quraanka haa bay ugu tiri marka waxa leegu aqriibay iqra bismi rabbika alladhi khalaq ayadiyan u wadi markuu dhameystiray marka aniga ma ay suuradaas yas'alama al-insana ma lam ya'lam way ku jirtay bay ugu tiri hadaba waxaan ku yiri ayadaasna waxay ku leedahay the bible kana waa taqaanaaye kitaabka quraankana baray ku leedahay aan ku yiri sad umada u gaarsiisid marka alxamdulillah ilaahay waa i waafajiyay marka gabadhii 6 pm bay noo timi wadaadadii bay u sharaxday wadaadadii markay u sharaxday arintii u sharax baan ku yiri wadaadada waa kuwana wadaadadii bay arintii sidii ugu sharaxday way oysay markii wadaadada sharaxaad ay u bilaabeen iska oysay gabadha ma sha Allah raxmadii ilaahay ku soo degtay ilaahay wuxuu ma arkaysaa marka nawaafajiyay gabadhii baadariyada ahayd intaasoo sano kaniisada ma arkaysaa wax ka aqrin jirtay annagoon de gurigeeda ugu tagin ilaahay ma arkaysaa qofka u soo diray annagana alxamdulillah sabab nooga dhigay sidii baan halkii aan tawxiidka ugu qaban gabadhii ما شاء الله diinta islaamka soo gashay ay naga codsatay magaca in laga bedelo Susan baa la dhahay gabadha from Susan waxay noqotay Zainab bay noqotay ma sha Allah ما شاء الله marka alxamdulillah waxaan sameeynay in kutub quraan baan siinay صح kitaab quraan oo keligii aweyn kitaab quraan ah iyo tafsiir oo carabi ah maadaama carabi ay taqaano hadana kitaab quraan ah tafsiir english aan siinay kitaab kale marka waxaan u helnay oo salaada ka sheekeynaya oo laga bilaabo min at-tahara ila at-taslim kitaabkan oo english carabi ku qoran way qaadatay marka masaajidkan tusnay alxamdulillah way baxday maalintii kale ay soo wacday صح waxay tiri maqribka marka idinka tagay hada around 8 something waa magaalada Melbourne adinka saameynay صح ila 4 am bitiri kitaabkii yara salaada ka sheekeynaad isiisan aqrinay tiri صح عجيب waan dhameeyay tiri kitaabkii min bidaaya ila nihaaya suuratu faatihana waan ka xifdiyay iga dhageysay bay ugu tiri صح عجيب alxamdulillah suuratu faatiha ka dhageystay way akhrisay gabadhii ما شاء الله gabadhii ma sha Allah gabdho kale muslimiina u tagay ilaa waa loo tagaa duruus baa la siiyaa waa la soo dhaweeyaa ma arkaysa mu'allafatul qulub baa lagu wada alxamdulillah waxyaabo marka cajiibka aan ku soo gabagabeynay marka maalin dhaxdaas had intay saa soo muslintay kadib ayaa hadana mar kale quraan loo akhriyay ana marka khayr Allah si imaam Nasr Muuse la dhahayo oo hooyooyinka dacwada ka wada magaalada Melbourne kamid ah u dirnayada iyo teamkeeda ay u sheegaysaa marka anna markii dambe aan la hadli doono ii sheeg ee xaqiijin doontaa waxay tiri aayad baa hadana lagu akhriyay aayadu maxay ahayd baan ku yiri aayadu waxay ahayd bay tiri in yansurukum Allah فلا غالب لكم fala ghaliba lakum وإن يخذلكم faman alladhi yansurukum min ba'di hadii uu ilaahay azza wa jalla uu idin gargaaro cid idinka guul dareysanaysaa idinka guuleysanaysaa ma jirto aayadaas lagu akhriyay hadaba indhageysaan ku yiri aayadu waxay ku tilmaamaysaa baan ku yiri maadaama aad soo muslintay inuu ilaahay ku gargaaray horta صح cid waliba oo kugula dagaasha islaamnimadaada صح wayba jiri doontaaye أنا أصدق ilaahay baa ku gargaaray kaama qaalib noqon doonaan baan ku yiri ee adiga ayaa waxa laga rabaa inaad sabirtid baan ku yiri gabadhii alxamdulillah aad bay u faraxday ila yawmina hada ma sha Allah waa gabar diinta xiisaynaysa inay barato maantaydaan oo ahad ana way ka baaqatay alxamdulillah programkii kaniisada darsi kaniisada ay ku lahayd way ka baaqatay ma sha Allah jazaakum Allah khairan qisaas ay u dhacday sheekay وقصة لو عبقات حقيقة إلهي سبحانه وتعالى قفك هنون لدونينا عد باديين كرتما قفك إلهي باديين عد هنونين كرتما إن شاء الله تعالى عبد القادر محمد قدر إسا قصة ما شاء الله هو سيداس ولالك إنه سوق بني وإنا كو عبرة قادر إن شاء الله ما ركتي أننا إيمانك إسلام لماذا إلهي نسي إلهي أنا محضرنا معناها وحيالها عجيب كأه وإلهي نوغر قارا وحيتا إنا داد إسلامنا نمعاذا أقوين وآن هيساننا واتاس marka insha Allah dadka kalena oo malaaleena aan ku dadaalno sidii Ilaahay maaragtay aan diinta u gaarsiileen annagana Ilaahay maaragtay aan u shukrino marka wajazaa gabadha waxay diyaar u tahay marka صح
horta walaalaha clipkan daawan doona waxaan ka codsanaynaa inay sii gudbiyaan dadka ila wadaagaan qofkii luuqadaha kale ku fiicanna qof walba luuqadu ku tarjumi karo inuu arinka ku tarjumo si dadka kale oo gaalada ahna ay cibro ugu noqoto muslimiinta laftooda iimaankooda ugu xoogaysta ma sha Allah gabadha laakiin waxay diyaar u tahay insha Allah markay diinta islaamka ay barato si fiican ay u barato in ay kitaab book ka qorto arintan qisada ay ku soo muslimtay insha Allah waxaan u rajaynaynaa inay daaciyad noqoto waxaan ka codsanaa qof waliba clipkan daawada inuu gabadha u duceeyo inuu ilaahay diinta ku sugo insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan bari inuu diinta ku sugo ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa ku anfaco khaasatan wadamadan gaalada ah ee ku noolnahay ikhwaani intaasaan idinkaga tagnay insha Allah ta'ala la socod xalaqaadkayga dambe wa salaamu calaykum wa rahmatullahi